kusoo dhowaada Main Public News Connect wararkii toddobaadlaha oo idinka بسم الله imanaya الرحمن idaacadda dadweynaha الرحيم Maine قلب wanaagsan oo ku baxaya daawayaal afafka Isbaanishka, baaritaanka Faransiiska, toogasho hoy Boortaqiiska, ku meel Soomaaliga gaara iyo oo cusub Af-Ingiriiska. fiisaha shaqada iyo barnaamij guriyeynta ah maanta waa maalin Jimcaha 17 bisha November waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan waa kuwan wararkii oo faahfaahsan baaritaanka toogasho gudoomiyaha gobolka Maine Janet Mills ayaa iyadu waxay wareegto ku soo saartay ku magacaabayso guddi madax bannaan oo ka kooban 7 qof oo iyagu ay ugu talagashay inay ka baaraan degaan sidii ay u dhacday toogashadaasi iyo wixii macluumaad ah ku saabsanaa arrintaas iyada ahayd ee laga ogaaday intii aanay toogashadaasi dhicin guddigaas ay magacowday gudoomiyaha gobolka oo ka kooban 7 qof waxaa hogaamin doona ninka la yidhaahdo Daniel Wethen oo horey u ahaa isagoo gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Maine waxaana guddigaas ku weheliya xeer ilaaliye hore oo dowladda federaalka ah iyo 2 kalkaaliye xeer ilaaliyayaal iyo weliba 2 garsoore oo maxkamadeed guddigaas waxa ay iyagu si faahfaahsan loo xilsaaray inay u soo bandhigaan wixii macluumaad ah ee ku saabsanaa ninkaas caafimaadkiisa maskaxda iyo weliba warbixino la sheegay iyo digniino la sheegay inay soo gaareen hay-adaha nabadgelyada ee gobolka oo ku saabsan iyadana inuu hub haystay hoy ku meel gaar ah oo cusub Portland ayaa iyadu waxay qorsheynaysaa inay furto hoy cusub oo ku meel gaar ah oo loogu talagalay dadka magangelyo doonka ah hoygaas oo ay iyadu la filayo inuu yeelan doono 180 sariirood mashruucan ayaa iyagu wuxuu socday muddo bil ah waxaana lagu kabaan idhaahdee lacag gaaraysa 4.5 milyan oo laga helay dowladda gobolka hoyga waxaa si wadajir u maamuli doona magaalada Portland iyo hay-adda xuquuqda u dooda dadka soo galootiga ah ee Maine waxay haddaba iyadana sidoo kale ka hadlay shir golaha deegaanka habeennimadii Isniinta maareeyaha magaalada Daniel West oo isagu sheegay in hoyga cusub uu ogolaan doono in ay furmaan 120 sariirood ay ka furmaan hoygii hore u jiray ku meel gaarka ah ee magaalada isla mar ahaantana mas'uuliyiinta Portland iyo hay-adda u dooda xuquuqda dadka soo galootiga waxay si wadajir u codsan doonaan 700 oo kun sanad walba inay lagu kabo si iyada hawshaas iyada ah looga wado gurigaas fiisooyinka shaqada idhaahdee dowladda federaalka ayaa waxa ay ka shaqayn doontaa inay bixiso ku dhowaad 2 laab fiisooyinkii hore ee ku meel gaarka ah ee shaqaalaha oo ay gaarsiiso ilaa 130 kun si ay uga caawiso ganacsatada xilliga ku meel gaarka iyagoo u baahan shaqaalaha haddaba ganacsatada dhinaca dalxiiska ee gobolka Maine ayaa iyagu aad ugu tiirsan dadkaas shaqaalaha ee ku meel gaarka ee leh fiisada la yidhaahdo H2B si ay iyagu u taageeraan ganacsiyada xilliga ku meel gaarka wakiilo ka socda goobaha ciyaaraha barafka ee gobolka Maine ayaa iyagu waxay sheegeen in sanadkii lasoo dhaafay uu ahaa mid ka mid sanadadii ugu mashquulka badnaa shaqadooda ayna filayaan in ay dardargelinta fiisahani wax weyn ka qaban doonto waxaa iyaguna sidoo kale haddaba u yimaada shaqaale beeraley ah oo iyagu ka shaqaysta gurista baradhada tufaaxa iyo adeeg kale oo beero iyagu mara jid ka duwan jidkaas H2B-ga oo fiisa kale oo loo yaqaano H2A iyaguna hela saraakiisha Mareykanka u qaabilsan ama idhaahdee xildhibaanada golaha sanadka u qaabilsan ka taga gobolka Maine ayaa iyagu waxay sheegeen inay baaritaan ku samayn doonaan waxyaabaha keena dib u dhaca fiisooyinkaas iyada oo mararka qaarkood kalifta in dadkii fiisadaas la siiyey ee looga baahnaa shaqadu halkan ay yimaadaan xilli dambe oo shaqadii ay kadib dhacaan barnaamij guriyeynta ah 2 urur oo saldhigoodu yahay Portland ayaa iyagu waxay ka shaqaynayaan in ay horumariyaan guri horey u ahaan jiray aan idhaahday guri ku meel gaara oo dadka hoylaawayaasha ah goobta hoygaasi uu ku yaalo oo ah Oxford Street waxaa loo rogi doonaa 30 ilaa 50 unug iyadoo la raacayo qaabka loo yaqaano housing first oo micnihiisu yahay guriyeynta marka hore qaabkaasoo isagu siiya dadka hoy la'aanta hoy iyo adeegyo kale oo lagu kabayo hay-adda Avesta Housing iyo kooxda aan faa'iidadoonka ahayn ee Purple Street ayaa iyagu mar hore waxa ay iska kaashadeen horumarinta guryo kuwaas oo ka koobnaa 85 unug
Avesta waxay haddaba qorsheynaysaa inay gurigan bilowdo sanadkan 2025 haddii iyadu ay helaan ogolaanshahaas magaalada iyo weliba maalgelintaas. Waxaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. intaas iyo sarag dambe waanad mahadsantihiin. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Main Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhaweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhaweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso.